السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سومالي وين ملك ستا جوجتان waxaan leeyahay galab wacan oo wanaagsan waa mashruuc media center oo nidahaya fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe like share comment anaga iloobin asxaabtaada la wadaag waa galabta iyo video cusub galabta waxaan iska joogaa xaafadeyda maxay ahayd halkaas aan ka soo duubayaa maxay asxaabey waxaan iga codsanayaa horta gabar waxaan walaashin Soomaaliyada ahay videogan inta furtid ha dhaafin hadad yani ku cusub tahay subscribe like share iska dheh hada awlan la joogtay like tii u caawi ma fahanteen marka asxaabay waxaan leeyahay galabta videoga waxaan uga hadli rabaa asxaab badan gabdho u badan ay la soo xiriireen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan nagala hadashid yani ka hadashid barnaamijyada jacaylka oo kaleeto waxyaabo badan aan kula wadaageena inaan u soo deesaa rabnaa okay waayaan dhahay laakiin galabta ana rabo inaan isku bilaabo qisadeedii ugu horeysay oo jacaylkii aan ku guuldareystay ma fahanteen dadka waxa la dhahaa run sheeg waa ceeb sheeg ma fahmino ani laakiin inaan la wadaago aan diyaar u ahay waayo asxaabteeda tiin faniskayga tiin familkayga tiin dhamaan hadii la isku darana waxa tihiin wada familkayga oo hore loo dhahay faniska waa familkaaga markaas xaabay aniga qisadii ugu horeysay u dhacday aan rabaa inaan la wadaago horta jacaylkayga ugu horeeyay hada ka hadalo guuldara iga soo wajahday laakiin alxamdulillah inta iska bacdi waa ka kabsaday marka hada ka hor waxa dhacday odaygii isqabnay oo markaas is aroosnay yani wax yara isqabnay adin muddo 2 bilood oo kaleeto markasta markii isku yara midqaana xanaaqno kaleeto de Carabi ilkaas ugu dhaw waxa la dhahay way isqoomaan markasta waxa ii ahaan jirtay inaan ka hadlo inaan iska keefurtaa raba ifur de wax niyad jirana ma ahan waa iska Soomaali macnaha markaas ifurta waxaan u arkayaa wax iska caadi ah marka sida u dhahay markii ugu dambeysay maalintii dambe maxaa dhacay waan isku yara xanaaqnay markaan isku yara xanaaqnaa waxaan yiri waan baxayaa ku meel ka soo noqonayaa hadaan ku imaad adoo ifuran de dhulka biyaha ka imaanaya ku dhahay daarti ugu dambeysay oo daarti ninkan maalinka soo xus dhaartan maxay ku dhigtaa oo ifur ku dhahdaa de sheedana markasta meelaha joogo soo sheedanku wuxuu ku dhahay naagtaan maalinka waxay ku dhahdaa ifur yaa ifurteed waa ugu badantaba iska fur odayga waa soo booday waraaqada qaatay dalqadayga ay ugu qormeesh maxaa dhacay ninkaas quraaca u diyaariyay miiska quraacda korkeeda uu joogo marka waxa sameeyay quraacdii muu cunin meeshiisii iska sii fadhiyo wuxuu isdhahay maanta maxaa sameeysaa asigii murug labaad sheedaanka wuxuu ku dhahay allah xaaskaagi ma furtay oo shala ma daraad aroosta istaghfirullah sana adigi wuu yaabano murug loo fariistay oo tin aniga ano socdaan iska imaaday hado amal maxaa imaad ma taqaanaan asagoo oo nooyo oo miiska kor fadhiyo oo quraacan waqti 6 saac meel haasta imaaday okay irida marka ka soo galay ninkaan indhaha gaduud noqdayna soo galay maxaa ku dhacay saan maxaa ku galay maxaa yaa dhintay maxaa ku dhacay aabaha ma dhintay hooda ma dhintay maxaa lagu soo sheegay ila hadal qaali maxaa dhacay iisha yaa bilaa markii ugu dambeysay dhahay ii sheeg waxa jiro maxaa qaldanaan ku dhahay maxaa saana ku dhahay saasoo dhahay markii dambe waraaqadii u tusiyay waraaqadoo geeska jeexan dabcan wuxuu yiri waraaqadan markaan damcay inaan qariyo jeexdana waxa soo dhahay ilaahay ku jeedaa waraaqadii u tusiyay waraaqad markuu tusay waa arkay naxdintii ugu dambeysay ma taqaana awowkii ayay qabtay uu dhacdaa anigana barteeda fariistay murug kaleent labadan isaa iskul fadhinale waa isku yaabnaa ku dhahay yaa marka waxaan leeyahay asxaabey gabdho iyo wiilal jiro hadaba markay saas oo kale isku dhacaan gabdhaha u badan laakiin walaalahayga u badan waxay leeyihiin wax yar hadii tabanayaan iska fur war furiinka wax jira ma oo hadana waxas wax lagu sii hadlo amba lagu macnaa maxay hada lagu hadlo maahan ama maxay hada wax lagu dheedheelo maahan anida ma ogaan jirin soo laakiin had waa bartay marka waxaan kaga digayaa gabdhaha walaalahayga inaysan ku fududaan ifur qool xun waay
wiilasha laftirkooda waa la hadlayaa, gabdhaha ku fududaanin aan leeyahay. waa leeyahay qof walba dhib ku arka loo ka hadalsiiyey sax. marka insha allah barnaamijka halkaasuu galabta ku ekaanayaa, waan sii wadi doonaa asxaabteyda qaaliga. aada inay jeclahay, waxaan u baahanahay inaa igu caawisaan mar labaad iyo mar saddexaadba subscribe, like, share, commentiga asxaabtiina la wadaagtaan. ma fahanteen? sheekadeeda insha allah wayna qancin doontaa. waa iska sheeko iska faniya waaye, qofka qisada ku dhacdan inuu ka sheekeeyo waa loo baahan yahay, waayo qiso ugu soo dhacday walaalka inaad kaga sii digto way fiican tahay. ma fahanteen? inkastoo hadda alxamdulilah aan ka kabsaday, hilmaamay waxaasoo dhan, yacni waxyaabo kaloo badan iiga qurux badan iiga dambeeyeen, laakiin qiso xanuun badan ay ahayd asxaabteyda qaaliga. meel kastaa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay galab wacan, waqti wacan, sheeko qurux badan. hadda waxaan leeyahay asxaabe ha lagu soo yaaca janalkeyga, uu cusub yahay. gabartaan maskiinta iskale meesha soo fadhisaa iska leh awowkii ayay qawaay. ma fahanteen? asxaabe marka waxaan leeyahay halay caawiyo, halaygu caawiyo. maxay ahaydee intii aan ii sheegay markasta waxweynaa kusoo celino waa laga fiican yahayo waa inii sheegay soo. marka asxaabe waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulante.